waa qaran vocational training oo ah dhismo hal qol oo qayb ka mid ah laga dhigay xafiis waxa uu ku yaalaa ka soo horjeedka baar fiyaad ama kilomitir eber waxa uu ka tirsan yahay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir waxaa la furay sanadkii 2017 waxaa wax lagu baraa arday isugu jirta danyar iyo barakacayaal kuwaasoo isaga yimaada degmooyinka Kaaraan Cabdulcasiis Shibis Boondheere iyo Shangaani in ka badan 120 arday ayaa lagu baraa maadooyinka Soomaaliga xisaabta Ingiliishka Carabiga caafimaadka iyo kuwa kale waxaa waxbarista ardaydani u istaagay wiilal dhalinyaro ah kuwaasoo gelinka hore waxbarta qaarkoodna barayaal ah labada galabnimo ilaa 9 fiidnimo ayuu furan yahay dugsigani oo hab private ah u shaqeeyo wax lacag ah lagama qaada ardayda oo si bilaash ah ay wax ku bartaan iyaga oo saacad u gala waxbarashada maadaama goobtu ay yar tahay 3 ku dhufo hal ku dar 22 waa bare sabuurada u taagan sharxidda xiisad xisaab ku dhufasho ah marka laga yimaado sharaxaadaasi waxaan la hadlayaa mid ka mid ah ardayda ka faa'iideysata fursadan waxa uu sheegayaa waxyaabaha uu halkani ka barto iyo sida uu uga faa'iideysto fursadan bala iska waxbarashadiis English bis fahamkiis aad u fiican waxbarashadana aad u rajeenana wax kala barana si caafimaadka iyo inaa heer gaarnayo caafimaadka iyo inaa doctor noqdo yaa computer iskoolkan aad u yar yaadana inaa si fiican noo luuyeeyay qaran kaliya wax kuma bartaan wiilasha sidoo kale waxa wax lagu baraa gabdhaha aan waalidkood awoodin inay waxbarashada ka bixiyaan waa 12 jir kamid ah gabdhaha halkani ka barta luqadda Ingiliishka sida ay u fahamtay iyo habka ay waalidkeed ugu dhiirigeliyaan waxbarashada ayay ka hadlaysaa English xisaab habeenkii makribka عشرين طلعنا يا أحمد برتا هاوي أنا معلمات نقل إنجليش waxbarashada bilaashka ah ee dhalinyaradani ku tabarucayaan dadka aan waxbarashada iska bixin karin waxaa si joogta uga faa'iideysta caruurta barakacayaasha ah waa 15 jir muddo ku nool Muqdisho waxa uu ka mid yahay caruurta barakacayaasha waxyaabaha uu barto ayuu ka sheekeynayaa iyo sida uu aqoonta uga dhaxlay waxa ka bartaa xisaab Soomaali English Arabi caafimaad oo hadda wali qalabkiisa halkeena la maasha Allah noo balan qaado computer no andi oo arjeenina insha Allah ina barano marka maadooyin farbadan bartaa maasha Allah markay maahada Soomaaliga soo qabca ka ahay haddana waa ka alxamdulillah ilaa bi fuudey hay inta ilaa iyo inta jecesha baa qori karaa maasha Allah English kisto horta wada sheekaysi waa qaadi karaan conversation between two person and move them xisaab maasha Allah ilaa iyo waxa gaaraani horta aljabro laakiin hadda u qeyb waa dhaafay maalin kasta inta macallinkii way u daalowtay hadii oo makisaado beena ka sheegay waxa uu ka mid yahay caruurta kuwooda ay fariidnimada ku jirto ee ugu aftahansan fasalka waxa uu nala wadaagayaa hees uu halkani ka bartay oo hooyada ku saabsan hooyadu waa lama huraan reer haduu yahay hayaan hayinka aad saaran tahay hogaankii haysatoy hoos bay kala hadashay intii aad ka huruday way ku heestaye hooyadu waa lama huraan si aynaan halis u galin cunta ay soo bisay dhaqsaho nama dhaxde intii ay ka hubisay iyada ayaa ku hormartay hooyadu waa lama huraan waxa uu ka mid yahay barayaasha sida bilaashka ay caruurtani wax ku bara waqtiga hore ee maalinkii dugsi nidaami ah ayuu wax ka dhigaa galabkiina caruurtan ayuu baraa maadooyin ay xisaabta ka mid tahay sida uu u go'aansaday in uu wax bara ardaydan ayuu sheegayaa iyo dhibaatada laga maro waxbaristooda facility ama qalabkii oo equipment wax lagu baran lahaa مثلا كمبيوتر inaan soo kordhinaa rabnay sanadkan maadaama caafimaadka hadda arday hore ka baxday iyagoo ay baraatika fiican aysan nursing ay ka baxeen kuwa hadda nursing ka dhigto oo ku jirana anaga baraatikada jeebkeena alaab ugu soo gadno oo siino ama qaar kamid ah
isbitaalada iyo farmasooyinka aan bahda wadaagtan ay ka soo qaadno wuu jirtaa qalab waa u baahannahay mar walba waa qalab la'aanta oo dhibaatooyinka ugu badanaysa waa waajib saaran oo mar walba inaan fuliyo uu yahay maadaama aan ahay qof dhalinyaro waa soo bartay aan dawladna soo arag dawladdiina aysan bijirin oo hadda dadkan kofargarayn karta ama wax ka bixin karto saasaan u doortay inaan waxbaro oo mutadawwic noqdo dadkayga aan waxbaro intaa ogeey ardayda wax lagu bara halkani waxaa ka mid ah gabadhani oo ka timid gobol marka hore ma aysan aqoon waxyaabaha la baray sida ay uga faa'iidaysato ayay sheegaysaa iyo muhiimadda ay u leedahay qof ahaan markaan imaanay Soomaali saas ma qorin inaan hadalka moogi ma qori karin laakiin hadda ma sha Allah wax kasta dhan waa qori kala wixii aan soo maray markii la weydiiyo oo kale waxa dhan ma sha Allah diinta ay furmo fursadan wallahi aad iyo aad waa qayb muhiim waay insha Allah inaan horumarka gaarana rabo waqtiga aan booqanayay